السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا هو إنجنير كنا أحمد حسن قمار، وآد أنا وفرح سنهي إن الأشرية صفي عن والسلطان حقيقي أن ضد بدن كهلي فهم كودسي فهمين إيو mahadnaqa ay soo jeediyeen. Anigu waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan mar walba dhiirigelinayaa in dadkaygu aytiga si fiican u fahmaan oonay khalad fahmin. aytigu ballaadhan yahay, maaha aqoon yar. dalkana iminka dee waxa weeyaan technolojiyadii bay iskugu imanayaan. dalba dalka ka technology sareeya ayuu dhaqaalihiisana ka sareeya. dalka haddaan technology la socodna ama dadkeedaan fahansanayn ama dalkaanu fahansanayn waxba ma kala soconayaan. technolojyadu wuu ballaadhan yahay. anigana mar walba waxaan heegan u ahay groupkeena lama horan IT consultancyna uu diyaar u yahay in ay dadkooda iyo dalkooda ay fahansiiyaan IT-ga, isla markaana caqabadaha haysta aanu ka dhaadhicino ama aan fahansiino IT-ga wuxuu yahay. anigu waxaan ahay information technology master, isla markaana soo bandhigi doonaa technologyada dhinac walbaan ka eegi doonaa. waxaana mar walba tixgelinaya oon horumarinaya ardayda casharada soo codsadaan. casharkan soo qaadan doona waxa weeyaan haddii website lagu dhisaan gareeyo ama lagu sameeyo website, maxaad u baahan tahay emails inaad samaysid. website casharka ku xigaa waxaanu soo qaadan doonaa website complete oon dhisaan garayn doono, isla markaana arday badan ay ka faa'iideysan doonaan. insha allah dhisaan garayn doonaan ka nimid badanna kasoo geli doono. websiteku waa projectiga ugu weyn ee lagu ganacsado. websiteku haddaad si fiican u fahanto web designku waxa weeyaan waxaad fahmaysaa ilaha dhaqaalaha ama halkii dhaqaalahu kaa soo gelayo inuu yahay website. okay, waxaan soo qaadan doonaa design website hosting iyo domain oo qura ayaan soo qaadan doonaa. caawa kama hadlayno design, waxaan ka hadlaynaa haddii lagu sii website aad samaystid, shirkadda ay kuusoo dirta si banalkii user iyo password. haddii lagu soo dira si banalkii user iyo passwordkiisa, sideebaad u samaysan lahayd email. hadii jeer customerska marka website loo dhisaan gareeyo, loo hagaajiyo, lagu wareejiyo, caqabadaha hortaagan wax weeyaan waxaanay samaysan karaynin email. haddaba waa inaad adigu email imika samaystaa website-kaaga. haddaad shirkad tahay, haddaad NGO tahay, haddaad hay-ad tahay, haddaad tahay personal, haddaad tahay news, waxa weeyaan waa inaad imika ku dhaqaaqda si aad u samaystid email. haddaad haystid si banalkana waa okay weeyaan. okay, cashirkeena iska bilaaban doonaa, la socdo. okay, markaan website-kii aan qorno waxaan ka dambaysiinaynaa c panel. okay, errorka halku ka yimi waxa weeyaan waxaad qoraysaa domainka www.tss
minus some dot organization slash cpanel. Okay, si fiican ula socda. Okay, markaad intaas qortid waxaa kusoo bixi doonaa qoraalkan. Okay, markaas cpanel sawirkaa ka maqan. Okay, waxaad gelinaysaa userka lagu soo diray iyo passwordka. Okay, markaad intaa qortid waxaad gelaysaa website-kii cpanelkii hostingkii badan guda gelaysaa. si fiican ula socda casharka. waxa weeyaan qolooyinka websadada leh waxa weeya waa inay si fudud u samaystaan email. Okay, hadda waxaan ku jirnaa hostingkii ayaan ku jirnaa. halkan emailka laga samaystaa email baanta ku samaysanaysaa. insha allah casharka xigana waxaan samayn doonaa website complete oo design garaysan, sida loo design gareeyo iyo waxyaabaad u baahan doonta markaad website u baahantii inaad samaystaan. Okay, waxaan odhanayaa email account. si fiican ula socda casharka. Okay, email account markaad tirahdid halkan waxaad gelinaysaa emailkaad u baahantayd inaad samaystid. lama huraan IT consultancy. Okay, password baad gashanaysaa. password mid adigu aada leedo oo high security oo samaysan kartaa. haddii kale halkan baad ku dhufanaysaa generate. markaas waxaan ku siin doonaa password high security. marka ilaa aad I have copied this password to secure location ilaa aad tigta saartid ma oran kartid use password. uu kaa diiday. waayo wax weeyaan waa inaad mar hore intaad koobiyeysataa si aad u xafidid. waan koobiyey imika maxaa yidhi waan koobiyeystay passwordka use markaa waa ka automatically size-keliya. halkan 250 markuu gaadho faylashaadu uu kaa buuxsamaya. haddii uu hostingkaagu yahay unlimited baad ka dhiganaysa. waraaqaha weligaa waa lasoo qaadiray kaama buuxsamayo. create account wadadaas markaa. Okay, we know what that. Okay, we know sorry. Account created. lama huraan IT consultancy @ss/some.organization. Okay. imika emailka waa inaan ka dhex helnaa. Okay. emailka isku jira. Okay. haddii qof customer shaqaalahaaga emailkii uu password garan waayo waa inaad soo gashaa cpanelka kadibna emailkan ka dhex baadhaa qofkii garan waayo passwordkiisa. kadibna imika lama huraan IT consultancy change password. adadu emailkiisa oo dhan aad garan kartaa. passwordkaad u bedeli kartaa. imika change baa oran doonaa password. kadibna password cusub baan u gelinaya. Okay, mar labaad baan ku celinay markaa. halkan buu kaa sheegaya very strong. haddii uu yahay mid daciifa uu ku sheegay. hadduu yahay password high security na uu ku sheegay 98. imika passwordkii waa high security waa 98%. Okay, markaa waxaan leeyahay change password. imika passwordkii maadaama aan bedelay waa inaan markaa u sheegaa shaqaalahayga inaan passwordka u bedelay oo intaa u geliyo. hadhow isagaa bedelinaya. inagaa bedelayna imika. waxaan geli doonaa akoonkayga tss some.organization/webmail. oo markaad gelisid email.
okay wuxuuna saaray emailkii baan gelina lama huraan IT consultancy at some other organization. Okay, passwordkeeni baan kashanayna uu markii inoo bedelay. Okay, inoo galay emailkii aanu samaynay. Okay, change password and security. Passwordka uu kuu bedelay qofkii website-ka security-giisa haystay passwordka uu kula hayo qofka. Marka si aanu password kula haynin waa inaad u bedelataa password change. Password cusub aan qoranaya. Marka passwordka cusub aan qorto wax weeyaan awood ma laha qofka kale ee hostinka maamulaya inuu waraaqay kula eego. waa haddii awood u leeyahay waa haddii uu passwordka uu ka bedelo. hadhow hadduu passwordka uu kuu geli waayo macnihii qofka hostinka ayaa passwordka bedelay kadibna wuxuu geliyay password cusub si uu markaa uu bal waraaqaha diraysid informationka uu la socdo. laakiin hadduu passwordkaaga aanu isbedelno oo si maalin walba si kaleera passwordkaaga u isticmaashid waa haddaad ilowdo halkeeda haddaad ilowdid waxweyn uu kuu format garanaya. laakiin haddaad aanad ilaawino passwordkaaga uu kaa diido macnii wax weyn halkaasa laga bedelay change. markaad si aanu passwordkaaga lagula haynin waa inaad password cusub markaa qorataa kadibna change baad oranaysa markaa change password. okay markaa si aan usii gudagalo emailkii waa inaan halkan ku kliksiyaa read mail using finger. marka inta saddex buu isticmaali kartaa laakiin anagu kan dhexaan u qaadanaynaa. anigu weliba kan dhexa waa waqti ka helaa laakiin dadka qaar kan bay ka helaan. saddexda oo isku mid laakiin kan baa design ahaan qurux badan oo dadku aada u isticmaalaan. okay emailka waa kaa emailkii aan sameeyey oo combileeda waa kaa comboys waan diri karaa waraaq wixii laysoo diraa kamaan ka helaya. marka inta combilate emailka uu shaqeynaya waan diri karaa waraaq waa laysoo dira. okay casharkan maanta soo qaadna waxbay casharkii sidee baad u samayn kartaa email website-kaaga oo kaga dhex samayn kartaa email. waxaan rajeynayaa inay ardaydu fahanteen. qofkii hosting iyo domain haysta website waa inuu emailka create ka dhigta waayo emailkan waa high security wax weyn lama jabsan karo wax weyn uu fiican yahay xagga security ahaan uu wanaagsan yahay. marka waxaan rajeyn doonaa insha allah xiisad ku xiga inaan website in design garayo complete ah oo qof walba uu fahmo isla markaana uu ku shaqaysan karo. wixii u baahan designkana way naga caawin doonaa. waa anigoo ah engineer Axmed Xasan Qamaan oo nagaga tegaya sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh.